asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi. qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Maraykanka waxaa lagu sheegay in dowladda Shiinuhu ay si toos ah u caawinayso dalka Ruushka markay noqoto samaysashada Ruushku hubabka uu kaga dagaalamayo Ukraine. Hore dowladda Maraykanku waxay dadyowga adduunka ula wadaagtay inay ka shakisanay dowladda Shiinuhu inay si kaleba u caawiso Ruushka. haatanse wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Maraykanku waxay sheegtay inay caddaymo ku filan u hayso in Shiinuhu caawiyo Ruushka. dowladda Ruushka ayaynu inagu ognahay daawadayaal inay tahay dowlad isku filan markay noqoto difaaca dalkeeda, balse dowladda Maraykanku indhowaaleba waxay sheegaysay kadib dalka Ruushku 2 sannadood uu dagaal ka waday dalka Ukraine in dhaqaalihiisu burburay, taasuna ay kaliftay in dowladda Shiinaha uu garab weydiisto. haatan ayay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku sheegtay in dowladda Shiinuhu ay si toos ah u caawinayso Ruushka. eedaynta dowladda Maraykanku ay ku eedaysay Shiinaha inuu caawinayo Ruushka ayaana weli ka jawaabin Beijing, balse waxaynu qiyaasaynaa arrintan inay tahay mid ka mid ah dacaayadihii reer galbeedka. dalka Ruushku waa dal weyn, haystana khayraad aad u fara badan. dowladda dalkaasuna waa mid ku filan difaaca dalkeeda. US claims that Russia ramps up weapon production faster than ever with Chinese support because it's getting massive inputs of machine tools, microelectronics, optics, mostly coming from China. 70% of the machine tools, 90% of the microelectronics are coming from China. Now, these are dual-use items, but we know very clearly where so many of them are going.